soo dhaweyno duqa magaalada Muqdisho. The hotel stands as a symbol of the resilience and determination of the Somali business community and as an example of Mogadishu economic resurrection. Our message is that Somalia is open for business. Mogadishu is also open for business. And the Jazeera Palace is open for business. waxaan ka xumahay inaan idiin sheego in maqaayada dhowr meelood wax lagu cuno iyo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaa u mahad celinayaa dowladda. bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. bilo ka hor meeshaan waxay ahayd muuqaal laga naxo oo baaba'san oo dunsan oo runtii calaamad u noqon karo in dalka laga cararo, laakiin maanta waxay tahay meel nolol iyo ilbaxnimo iyo horokac iyo ku soo dhiirasho ay ka muuqato. arrinkaasi muxuu muujinaa marka waxuu siiya arrinkaasi wuxuu fariin u yahay dadka Soomaalida sida shabaabka ay uga go'an tahay inay dumiyaan ay dilaan inay dhisaan ay noolaadaan inay rabaan ay calaamad u tahay. ilaahay aayad quraan oo noogu sheego wuxuu yiri في سورة النحل هذا أمريكا ويمارو أفريقيا اعتماده ويمال قشدان يكون أولادان وجي قيب كمية أواد مهمة وايو غير جزيرة يكوتين ذات كمال قشدان الله. بسم الله الحمد لله. waxaan bilaa hotel jazeera waa meelaha inta badan dadka dibadaha ka yimaado oo ajaanibta ah ama dadka mas'uuliyiinta ah meelaha inta badan ay doortaan inay degaan ayay ka mid tahay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halkaan ayuu deganaa jiray maalintii la soo doortay oo ka soo baxay habeenkii dooqa meesha kaliya uu doortay inuu dego hotel jazeera ahaa. safiirka Shiinaha warsame geeljir meeshii uu dego waxay ahayd hotel jazeera. safiirka qatar markuu yimid waxay meesha uu dego hotel jazeera. aniga gudoomiyaha gobolka maanta warqadaan soo qaatana waxay meeshaan soo dego hotel jazeera yahay. kugu talagalay hoteelka oo la qabeynaya xagga gadaale uga maasantiin